في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxa dhacda arrin weyn wuxuu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi habeenka bisha shacbaan ay kala baranto nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa adoomadiisa dhamaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dambi dhaafaa dhamaantood dambigooda waa saamaxa illa laba ruux mooyee ruux mushrik ah oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo kaliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waatan quraanku tilmaamayo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء alla ma dhaafo in isaga iyo adoomadiisa wax la wadaajiyo la isugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dambi ilaahay laga galo ka ugu weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dambigaaga haba yaraatee la saamixin aakhirana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan ka tahay naarna aad ku waarayso ka labaadeen loo dambi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhigay ilaahay tabaaraka wa tacaala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay adoomadiisa ee mu'miniinta muslimiinta xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma aha munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حنان